waa tuma wasiir Khadiija Maxamed Diiriye wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye waxay ka mid tahay tiro yar oo xildhibaanaha haween ah kuwa oo xogaal u ah heerarka ay soo martay halka ay maanta joogto siyaasadda dalka. waxay hayaankeeda u shaqeynta dowladnimada Soomaaliya ka soo bilowday dib u dhiskii Soomaalida maanta ee burburkii kadib lagu soo yeelay Carta. wixii xilligaas ka dambeeyay waxay ka soo muuqatay baarlamaanadii dalka soo maray iyadoo dhaxaad mar walba u ahayd golaha shacabka ee xubin ka tahay tan iyo maanta la joogo. muddadaas 22 sano ah waxay xilliyo kala duwan ka soo muuqatay golaha wasiirada xukuumadihii dalka soo maray ee Soomaaliya oo hadda ay wasiir ka tahay xukuumadda xilgaarsiinta ah ee jirta. Khadiijo ayaa madaxweynayaashii dalka soo maray mid walba waxa uu si gooni ah u amaanay inay tahay shakhsiyad howlkar ah booskii loo dhiibay ka soo baxaysa. waxaa jira dhowr wasaaradood oo loo dhiibay kuwa oo aan lahayn xilligaas xarumo ay ku shaqeeyaan iska daa xafiis iyo kursi lagu fadhiistay waxayna wareejisay iyadoo u soo celisay xarumahooda oo eeg wasaarad dowladeed oo ku shaqeynteeda aysan dhibayn shakhsiyaadka bedelaya. markaas waxa ugu weyn oo Soomaali oo dhan ay ku amaanaan Khadiija Maxamed Diiriye ayaa waxay tahay dib u dhiskii iyo muunad u yeelidii garoonka kubadda cagta ee Muqdisho Stadium oo habeeno badan ay u dhafreysay maalmo badan ay u gelisay waqtigeedii ugu badnaa sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ee dib loogu soo celin lahaa ama loogu furi lahaa garoonkooda una soo laaban lahayd darajadooda. wixii xilligaas ka dambeeyay Khadiija Maxamed Diiriye ayaa loo wareejiyay wasaaradda gargaarka ee xukuumadda hadda jirta taas oo magaceeda aan la aqoonin balse hadda ka mid ah wasaaradaha ugu shaqada badan ee muuqda. intaas waa tii qaranka guud ahaan ay hoysay oo aan yar ka soo qaatay waxaana u dheer u shaqeynta reerkeeda ee kursiga ku matasho ee beesha Yaxar oo caleemo saaray kursiga marar badan sheegay in matalaad la mahadiye ay haystaan ay raali ka yihiin inay sii matasho. muddada kursiga ay ku fadhiisay xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye waxay gobolka Banaadir iyo wasaaradaha dowladda ka shaqaaleysiisay dhalinyaro badan oo reerkeeda ah mana jirto qof ay ka xiratay oo si kalsooni ah ugu adeegtay dadkeeda. deegaanka laga soo doortay Hirshabeelle waa xildhibaanka kaliya ee golaha shacabka ka tirsan ee u taagan in la shaqeyso maamulka ka jira iyadoo waxqabadkeeda loogu asteeyay inay tahay xidigta Hirshabeelle. markii la arkay saameynta ay dadkeeda deegaankeeda iyo ummadda Soomaaliyeed ku dhex leedahay xildhibaanada ayaa la bilaabay abaabulka dhalinyaro baraha bulshada ka aflagaadeynaya kuwa oo qarashaad la soo siiyay kaagadan kuwa sidaa u dhaqmaya ee aflagaadeynaya kuma jiro hal qof oo ku beel ah mid walbana waxa uu ku haystaa kursiga ay ku fadhido iyagoo aflagaado huwinaya midkood yaqaana sababtu wacaynayo hooyada Soomaaliyeed kuma jiro. wasiir Khadiija Maxamed Diiriye ayaa taageero iyo garab istaag weyn ka haysta odayaasha dhaqanka aqoon-yahanada waxgaradka iyo dhalinyarada beesha ay matasho kuwa oo sheegay inaysan jirin cid ay ka dhageysanayaan hadallo baarlaxawsi ah ayna sii matali doonto wasiir Khadiijo iyagoo u sababeeyay waxqabadkeeda. waxay tilmaameen in kalkaan kursigooda uu noqday dahab ayna ku sii fadhiisan doonto wasiir Khadiija Maxamed Diiriye ayna sii taageerayaan taas oo naxdin iyo qalbi jab weyn ku noqotay dadkii caynayay. haddaba daawade sidee u aragtaa in qof aan rabin in hooyadiis la caayo oo mar walba caayo hooyo kale oo Soomaaliyeed?